jeexjeexa ee qabta inay ka baabi'iso. marka aad soo gadanaysid baakadeeda waxaa ku sawiran labo cag oo markii hore jeexjeex qabtay iyo cag markii dambe markii loo isticmaalo sakiintaas jeexjeexi ka bi'isay. marka hadda ani baakadeeda ma haayo, gabdhaha Jarmalka ila jooga waxay ka heli karaan DM-ka ayaa lagu gadaa. marka walaalahayga waxaad u baahan tahay marka hore baaldi haddii ay haysatid ama waxaa jiro geed lugaha loogu talagalay oo lugaha lagu dhaqo oo biyo lagu shubo kadibna lugaha la dhex geliyo. haddii aadan geedkaas haysanin waxaa isticmaali kartaa baaldi alaal baaldiga gurigaaga ku yaalo. biyo ayaad ku shubanaysaa, biyo oo wax yar qandac ah iyo qaado oo baking soda ah. 10 daqiiqo markii ay halkaas ay ku jiraan cagahaaga waad ka soo bixinaysaa. waxaa isticmaalaysaa geedkaas ayaa isticmaalaysaa. halkaas aan idin sheegan waa laga isticmaali karaa. haddii halkaas ay kugu filnaaweysana halkaas kalena waa ka isticmaali kartaa. cagta markii aad u isticmaashid oo cagta hoose aad kusoo jiidid oo sidaa idin sheegay saas aad ugu soo jiidaysa, saas ayaad sameynaysaa. cagta dhan ayaad kusoo wareejinay meel kasta oo aad ka qabto aad adeeg ama meesha aad leedahay cagta way ka adag tahay. kadib intaas markaa sameysid biyaha ayaa si fiican iskaga dhaqaysaa. waxaad isticmaalaysaa fasiliinkaas iyo liintaas. haddaan idin tusi doonaa sida iskugu dardaraayo. kadib waxaad gashanaysaa sigsaan. intii kugu filan adiga ayaad la joogaysaa saacad ama nus saac ama 20 daqiiqo. intaadi aad jaanis haysatid ayaad la joogaysaa. shardi maaha maalintii oo dhan in aad la joogtid. waa fahanteen Soomaa walaalahayga. fasiliinka caadiga waaye iyo liintaas si fiican aan isku dhex gelinayaa. marka aad geedkan isticmaashid kadib waa inaad fasiliinka iyo liintan hadda aan idin sheegay isticmaashaan. lugaha si fiican ugu masaajaysid waayo lugahaaga marka aad marinaysid waa inay qaleel ahaadaan. shukumaan kusoo tirtir. kadib waxaa marsataa alaabtan ayaa marinaysaa. sigsaan ayaad la gashanaysaa. intii adiga jaanis aad haysid ayaad la joogaysaa. ma aha inaad maanta dhan la joogtid ama habeenkii aad la seexatid. intii aad jaanis haysid ayaad isticmaalaysaa. marka asxaabay si fiican isku soo dhex gelgelinaa. waa isku soo qasaa. marka isku soo booy kadib ayaan isla arkaynaa insha Allah. sidaas aan isku soo dhex gelgeliyay. cagta hoose ayaad marsanaysaa kadibna sigsaanta ayaad gashanaysaa. insha Allah walaalahayga waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. aniga sakiintan hadda aan tusinaa sakiinteedii labaad. 2 sakiin ayuu wataa sidaan idin sheegay. 3 bil ka hor ayaan isticmaalay. runtii ilaa haddana cagteeda wax jeexjeexa iyo wax adeega kuma arkin. adinkan soo baroobeeya, soo tijaabiya. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.